anigu waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi nin isaaqa baan ahay meeshana uma dhalan cid aan ka aqaanayna meesha ma jirin sida aawadeed meeshan sanad iyo xogaa baan joogay oo dad ka mid ahaa nin baan la hadlay oo wuxuu igu yiri aan ku yiri intaan hoos ula hadlay aniga wada halkaas aan ka iimay maxaa xal ah mar kale qof ka yimid gobolada waqooyi yuusan ku dhihin dadka halka ka yimaado shabaabka aragtidooda ma aaminsana mana taageersano weligood waxa lagu sheegi jirayba in shabaabka dadka maalgeliya ee diidaya in koonfurta nabad ay noqoto maanta waa taa waa haysiin muuqaalkan la wadaag iyaga qudhooda si ay u arkaan rag reer waqooyi maanta qiraay inay yihiin shabaab كل وقوي بدنا كجر سما. أوري وقوي بدنا وجهه. سيكو إيمانه مرك توبرك هالمرة في إلا ترى أنت صلك سلم كيناي. هذا قوي ويسوي تشكيل سنشرين. قاب كي. وهذا قدام ما قرنيه سيد قاب كي يكون كيني شرين. أنا قدام لما تشوفه. وقاب وحكوا كانوا. ده ما فهم كريسي. وحقرة إنه يهاي مواد سوماليات وكسر جيد قبلة وقوية سوماليا. شبابنا وكتر سنة. doona yani inuu bulshada dhibaato u geysto duruufna ay ku kaliftay kaligii maaha marka waa koox xitaa in ka badan 50 qof oo ka yimid gobolada waqooyi ayaa loo qorsheeyay in shabaabku ku biiraan dabadeedna dhibaato u geystaan dadkeena Soomaaliyeed laakiin maanta ha ka harto dadka ka yimid gobolada waqooyi siiba magaalada Hargeysa markay joogaan Muqdisho lagu xanta lagu sheego in shabaabku iyagu ay maalgeliyaan qaarkoodna dhibaato ay ka geystaan taasi waxay u arki jireen oo kaliya dhaleeceen war aan waxba ka jirin laakiin maanta waxa marqaati u nahay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la soo hor istaajiyay rag ka yimid gobolada waqooyi qiraayo inay yihiin shabaab qaarkoodna loo tababaray kubana ay ahaayeen si lamidana qorshahoodu u ahaa inay Somaliland dhibaato ka geystaan koonfurta Soomaaliya ee dhibaato ka geystaan maanta mar kale qof ka yimid gobolada waqooyi yuusan ku dhihin dadka halka ka yimaado shabaabka aragtidooda ma aaminsana mana taageersano weligood waxa lagu sheegi jirayba in shabaabka dadka maalgeliya ee diidaya in koonfurta nabad ay noqoto maanta waa taa waa haysiin muuqaalkan la wadaag iyaga qudhooda si ay u arkaan rag reer waqooyi maanta qiraay inay yihiin shabaab anigu waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi nin isaaqa baan ahay meeshana uma dhalan cid aan ka aqaanayna meesha ma jirin sida aawadeed meeshan sanad iyo xogaa baan joogay oo dad ka mid ahaa nin baan la hadlay oo wuxuu igu yiri aan ku yiri intaan hoos ula hadlay aniga wada halkaas aan ka iimay maxaa xal ah wuxuu igu yiri niyo ma futada leyd ku leedahay dadku miyay ka garanay stop futada ka baxaya oo halkaas wax kaaga qoran yihiin ma idee dadka ka mid noqon igu yiri niyo hore u soco garaad ka war ya garaad muxuu ahaa garaad wuxuu ahaa muxuu amiirkii marka dawladan iyo qoladan reer waqooyiga haystay buu ahaa hay muxuu ahaa marka magaciisa caadiga ah xitaa wallahi la intee baratay magaci meeshu baan isku baran wixii uu reer waqooyi u garto ayuu liistaystaa oo hoos yimaada oo inta yarna siiya waka inta yarna hay inta yar muxuu ahaa siiyaan dadka lacagta ah توبر كل وقوي بدنا كجر سما. أوري وقوي بدنا وجهه. سيكو إيمانه مرك توبر كهالمرة في إلا ترى أنت صلك سلم كيناي. هذا قوي ويسوي تشكيل سنشرين. قاب كي. وهذا قدام ما قرنيه سيد قاب كي يكون كيني شرين. أنا قدام لما تشوفه. وقاب وحكوا كانوا. ده ما فهم كريسي. ما قرأتها. لين ده يجا وين كون بقى فهم كره. أنا قدام ما فهم كرين قاب كحكوا كانوا. سيد وين جدي مرك قاب كعدم أنت جوكتي ده كتربك صلك شان. ترى أهان يقاب أهان مغي هاين. أنا قلت توبر مقلين نافع أنا. دورة ده. ده يا لبي يلقي إنه ملاك صوّد ولا خصبين. هي ولا خصبة. أي هاي. ومقرن ليسوق كانوا ده هو رقيتهم. وده الدالي بهاي. سيدا. أنت هذا واحد حاولي مركان أركي إني واحد قرعني وضعنا لي شقينين. لفها يجي ميل أنك قبض بعده. وكسب حصل هذا الأمر الحاصل. waxaan soo galay Muqdisho anigu ma aqoon cid aan isu soo dhiibo iyo cid aan la soo xidhiidho anigu waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi nin isaaqa baan ahay meeshana uma dhalan cid aan ka aqaanayna meesha ma jirin sida aawadeed meeshan sanad iyo xogaa baan joogay oo dad ka mid ahaa nin baan la hadlay oo wuxuu igu yiri aan ku yiri intaan hoos ula hadlay aniga wada halkaas aan ka iimay maxaa xal ah wuxuu igu yiri niyo ma futada leyd ku leedahay
dadku miyay kaa garanaya stop aftada ka baxaya oo halkaas wax kaaga qoran yihiin way dadka ka mid noqon guuleen iyo hore u soco sidiiba ayaan gurigeyga iyo u dhaxeeyay oo meesha wax ka cunayay dabadna sidii waa la igu soo qabtay dabadna intaasay hay bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo